Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhowaada casharkii koowaad ee buuggii Biology Secondary Form 1. maanta waxaan bilaabaynaa manhajka cusub ee sanadkan 2020 loogu talagalay ardada Soomaaliyeed, gaar ahaan maadada biology-ga ayaan ku hormaraynaa. manhajka magaciisu waxa weeyaan Biology Secondary Form 1. fadlan dhegeysta haddii aad ku cusub tahay channelkeeni subscribe garey oo gambalaalka furo si aad u aragto wax alla wixii cusub ee markaa la soo geliyo. Biology Secondary Form 1 chapterka koowaad waa Introduction to Biology, waa hordhaca biology-ga. chapterka koowaad baynu ka bilaabaynaa. lesson 1 casharkiisii koowaad. casharka koowaad waxaan rabnaa in aan ku baranno 3 shay. what is biology? biology maxaa la yidhaahdaa? 2 branches of biology, laamaha uu leeyahay biology-ga, inta laamood ee uu ka kooban yahay. the importance of studying biology, muhiimadda ay leedahay barashada biology-ga. 3daas qodob ayaa la rabaa ardayga in uu fahmo markuu chapterkan uu dhammaado. waxaan ku horeyneynaa qodobka koowaad. what is biology? maxaa la yidhaahdaa biology? pageka 2. what is biology? Biology is a branch of natural science that deals with the study of living things. Biology waxa weeyaan waa laan ka mid ah natural science-ka. Science-ka la yiraahdo natural science waa science-ka dabiiciga ah ee ka sheekeynaya waxyaabaha dabiiciga ah. that deals with the study of living things. wuxuu ka hadlaa biology-gu waxa weeyaan barashada noolaha. biology haddaad maqasho waxa aad ku baranaysaa waa barashada noolaha. shay nool ayaad ku baranaysaa. the science which deals with the study of living objects and their life processes is called biology. sayniska ka sheekeeya ama ka hadla ama diraaseeya nooleyaasha waxyaabaha nool iyo processka ay marayaan ayaa waxaa la yidhaahdaa biology ayaa la yidhaahdaa. The word biology is derived from 2 Greek words, bios, which means life, and logos, which means knowledge or study. ereyga biology waxaa laga keenay 2 erey oo waxa weeyaan oo Greek ah, oo waxa weeyaan bios iyo logos la kala yiraahdo. bios waa erey Greek ah, waxaa laga wadaa life, waa nolosha ama shayga nool. logos waa erey Greek ah, isagana waxaa laga wadaa knowledge, aqoonta, or study ama waa barashada. marka la isu geeyo marka waxay noqonaysaa waa barashada noolaha. maadaama Greek ay ka faa'iideysteen aqoontii hore ee dadkii muslimiintu ay lahaayeen iyo wixii la mid ah, marka aqoontuna ay ku qornayd afka Greek ah, sidaas ayaa ay u garan jireen bios, logos ay u kasi jireen. ka bacdi biology ayaa hadda loo yaqaanaa. waxaan halkan ka gelaynaa branches of biology, laamaha biology-ga. biology-ga waa cilmi aad u ballaaran oo leh laamo aad u tiro badan. biology is a broad science that has many branches. waxaad ogaanaysaa biology-gu inuu yahay science aad u ballaaran kaasoo leh laamo kala duwan leh. There are 2 major branches of biology. biology-ga 2 laamood ayaa ugu waaweyn. 2 laamood ayaa ugu waaweyn biology-ga. botany iyo zoology ay kala yihiin. botany is the branch of biology which deals with the study of plants. botany-gu wuxuu ka sheekeeyaa dhirta ayuu ka sheekeeyaa. waa laan sayniska ka mid ah kaasoo waxa weeyaan
ka hadasha barashada waxa weeyaan dhirta. branchiga labaad ee biology-ga ugu weyn waxaa la yiraahdaa zoology. is the branch of biology which deals with the study of animals. zoology waxaa la yiraahdaa waa laan sayniska ka mid ah isaguna, kaasoo waxa weeyaan ka sheekeynaya barashada xayawaanada ayuu waxa weeyaan ka sheekeynaya isaguna. waxaa jira smaller branches yaryar ee biology-ga uu ka farcamo. labadaas waa branchial waaweyn, kuwa yaryar ayaa jiro. jadwalkan ayuu kugu soo koobay, way badan yihiin laakiin 6 ka mid ah ayuu waxa weeyaan halkan uu kugu tusayaa. some branches of biology and their definitions. waxaa halkan ka qaadanaysaa qaar ka mid ah laamaha biology-ga iyo qeexitaanadooda. branches of biology, laamaha biology-ga ayuu halkan kugu taxay. description, faahfaahintoodiina halkaas ay kugu qoran yihiin mid walba iyo wuxuu yahay. ka koowaad waxaa la yihahdaa morphology. is the study of external features of an organism. morphology waa cilmi ka mid ah biology-ga oo hoos yimaada, ama branch yar oo biology-ga ka mid ah oo lagu barto external features, astaamaha oo waxa weeyaan dibadda ah of an organism ee noolahan marka laga hadlayo dushiisii dibadda ah, korkiisii maalan qoloftiisii iyo daboolkiisii external ah marka laga sheekeynayo, dufta iyo timaha iyo maqaarka iyo marka laga hadlayo waxyaabaha dibadda ah, cilmiga lagu diraaseeyo ayaa la yiraahdaa morphology. nin dhan ayuu wuxuu sanooyin badan uu ku qaadanayaa darajo aad u sareyso PhD ah morphology-ga, inuu barto nooleyaasha jira astaamahooda waxa weeyaan dibadda. cytology is the study of cells. waxaa jira branch kale oo labaad oo la yiraahdo cytology. isagana waxaa lagu diraaseeyaa, lagu bartaa cells, unugyada jirka bani'aadamka ku jiraayay. bani'aadamka uu kasoo unkamay cell waa waxa ugu yar oo waxa weeyaan oo aasaaska u ah noolaha weeye ee uu kasoo unkamay. histology is the study of tissues. histology-na waxaa lagu bartaa isagana tissues, nodayaal waa wixii cell ka weyn la yiraahdaa. cell waxa ka weyn unug waa ilma aragto, ishaada ma qaban karto cellku, microscope-ka lagu arkaa. cell marka dhowr cell isu tagayna tissue ay noqonayaan, waa nodayaal sida waxa weeyaan lafaha, waa sida dhiigga, waa iyo wixii la mid ah. microbiology, the study of microorganisms. microbiology-gana waxa weeyaan waxaa lagu diraaseeyaa microorganisms, shayyaasha oo isha aan qaban, nooleyaasha ah ee isha aan qaban ayaa lagu diraaseeyaa. anatomy ayaa jiro. is the study of internal structure. isagana waxaa lagu diraaseeyaa oo lagu bartaa qaab dhismeedka gudaha. haddii morphology-ga lagu baranayo external featureska, anatomygana waxaa lagu bartaa internal structure, qaab dhismeedka gudaha, noolaha gudihiisii sida uu dhisan yahay, waxyaabaha uu ka kooban yahay ayaa waxa weeyaan looga hadlaa. physiology is the study of different types of body functions. physiology asagana waxaa lagu baranayaa lagu bartaa asaguna different types, noocyada kala duwan of body functions, shaqooyinka jirkaaga ka socda waxa weeyaan noocyadoodii kala duwan ayaa lagu bartaa. jirkaaga shaqooyin badan baa ka socdo, systemyo fara badan ayaad leedahay. neefsashada hadday ahaan lahayd, qashin saarka hadday ahaan lahayd, taranka hadday ahaan lahayd, waxyaabahaas oo dhan physiology lagu bartaa. halkan wuxuu kuu diray marka activity in adiga ka soo shaqeyso ilaa 10 xabo oo waxa weeyaan branches of biology ah, sida embryology, ecology, genetics, parasitology, taxonomy, entomology, etiology, herpetology, ornithology, mammalogy. waxyaabahaas oo dhan adiga laga doonayaa marka inaad soo raadiso oo aad ka soo raadiso buugaagta kale ee biology-ga. waxa la wixii markaasi loo isticmaalayo inaad dadaasha laga rabo oo aad soo shaqeydo. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waa 10kii koowaad manhajka cusub ee sanadkan biology secondary form 1
sanadka cusub ee 2020 ee hadda loo bilaabayo ardada. fadlan ku xirno oo subscribe garay. waad mahadsan tahay. waa Nuur Cabdullaahi Abubakar Alxadrami oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.